saaka shaqada ka socota isxilqaankii qayb ka mida waaye haddii aan la guuro waa shaqaalihii dawladda waxa saaka shaqada ku jira oo hawsha haya oo dhismaha wada oo aan shoornaati ku qaadanayn oo haddii aan la guuro markii shaqada dhammaysa ay ridda ka baxay inta kale waa in yar oo haddii aan la guuro technician oo farsamada uu aqoon u leh laakiin xoogga hawsha wada waa isxilqaan waa shaqaalihii haddii aan la guuro dawladda oo ku shaqaynaya inay dalkooda iyo dadkooda haddii aan la guuro yahay ay garab istaagaan waxa uu la dagaalamay jiray tiyaatarku waxa waaye fikrada qaldan oo meelaha kale looga yimaado tusaale haddaan ku siiyo asaga laftirkiisa oo hadlaya tiyaatarku wuxuu yidhi garaafada haddii layga tiro saaran gibilkayga gurmad qaranna aan helo waa gudlo lahaye geeshka ciidankeennuna gadaal sooma eegeene geyigeenna cadow soo galaan nama gubaadeen sidii garax shisheeyaha ilmuhu naguma giirteen gurbood mari habawsani risaas laguma gaadeene naftoodana ma gooyeen dadkana may galaafteene cadowguna garnayl kama dhigteen waalidkood guba kediisaan isugu geylahayay tacliin gabe marka waa uu la dagaalamayaa waana shaqadiisii ilmahana fursad cadow ku mari habaabiyo oo been loogu sheego maba heli lahayn hadduu jiri lahaa national theatre waa xaruntii qaranka waa xaruntii hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed waa xaruntii fanka iyo suugaanta waa xaruntii farshaxanka marka waxa uu qaban jiray taariikhda ummadda ayuu sal u ahay xigmadda ummadda iyo murtideeda ayuu ahay haddii alla gureeshi ay ka soo burqa jirtay asaga laftirkiisu tiyaatarku gabay uu tiriyay waxa kamida guri dhaqanka Soomaaliyeed geliye diiwaanka oo lagu gamo waxaan ahay garasha taalaay hal abuurka goob lagu liso gaaxda lagu maalo golihii waxaan ahay murtida gaawaha u siday marka wuxuu ahay guriga dhaqanka Soomaaliyeed wacyigelinta ummadda Soomaaliyeed garaadka ummadda Soomaaliyeed marka tiyaatarku wax qabadkiisu sidaas oo ahay wuxuu kala qayb ka ahay tacliinta ummadda toddobaadkiisa waxa lagu qaban jiray barnaamijkii dugsiyada sare ee kedis la dhigi jiray oo ardada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan lagu tartansiin jiray aqoonta wuxuu ahay golihii hirgelinta heesaha haddii alla guurooya lagu qaban jiray oo dadka Soomaaliya fanka magaca ku leh ay ka soo baxeen marka golihii wuxuu ahaa garaadka ummadda Soomaaliyeed lagu dhisi jiray waxa lagu qaban jiray